Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaa soo martay taariikhda shirkadda diyaaradaha Mareykanka khasaaro weyn oo malaayiin dollar ah. Waxaana khasaarahaasi sababay hal nin oo keliya, kaa oo markuu doono safro meeshuu doonana u safro. Dhammaanteen waxaan jecelnahay in aan dalxiisno oo meeshaan doonno u safarno, laakiin waxaa arrintan naga hortaagan qarashkii aan safarka ku geli lahayn. Haddaan haysan lahayn lacag aan ku dalxiisno meeshaan doonana ku aadi karno, waan safri lahayn, laakiin aawi lacagtii. Ma la socotaa daawada inuu jiro nin kumanaan jeer lacag la'aan ku safray oo diyaarad raacay? Waxaa laga yaabaa in aad isdhahayso ninkaasi waa madaxweyne, ama waa dhakhtar baahi weyn loo qabo, ama aqoonyahan kale oo aad loogu baahan yahay cilmigiisa. Laakiin ninkaasi intaasi midna ma ahan. Waa nin caadi ah oo adigoo kale ah, laakiin awooday inuu subaxii ka quraacdo Paris, duhurkiina ka qadeeyo Istanbul, cashadana ka cunteeyo Dubai. Sidoo kale waa nin ay u suura gashay asigoo degan Washington inuu xaaskiisa subaxii quraac ugu soo iibiyo maqaayad ku taalla Ottawa, Canada, isla barqadiina ku soo laabto magaalada Washington. Sidoo kale waa nin awooday marka uu raacayo diyaaradda in uu xanibo kursiga dhinaciisa ah, kaa oo faaruq ahaanaya inta uu diyaaradda saaran yahay. Haddaba ninkani awoodda badan muxuu yahay ee ay u suura gashay mar alla markii uu doono inuu safro meeshuu rabana aado, ayadoo waxaasoo safar ah aysan ugu bixaynin qarash iyo dadaal xoog badan? Ninkani awoodda badan ee waxaasoo idil ay u suura galeen waxaa lagu magacaabaa Steve. Waa nin Yahuudi ah laakiin haysta jinsiyadda Mareykanka. Wuxuu ninkani sanadkii 1987 ka iibsaday shirkadda diyaaradaha Mareykanka tikid dahabi ah oo qiimihiisu ahaa $250,000. Ma ahayn tikidkaasi mid ku eg hal safar ama laba safar, ee wuxuu ahaa tikid dahabi ah oo inta uu nool yahay Steve u suura gelinaya inuu safro. Waxaa kaloo tikidkaasi la socday mid kale oo Steve u ogolaanayay inuu qof ama laba qof hore u soo wato. Dhanka kale wuxuu tikidkaasi Steve awood u siinayay inuu fariisto qaybta VIP-da ee qaaliga ah. Haddaba ninkani muxuu mar walba u safrayay? Wuxuu dhahay, aniga waxaan jeclahay safarka, waxaana awoodaa inaan u safro dal walba oo ku yaala dunidani. Waxaa layga rabaa in aan soo diyaarsado boorsadayda ama shandadii aan ku safri lahaa, kadibna waxaan si toosa u aadayaa airportkii ugu dhow markaasi. Wuxuu ninkani 500 jeer safar ku tagay dalka Ingiriiska, 70 marna dalka Australia, 120 jeerna dalka Japan. Waxaan oo safar ahna ma ahayn wax qiimo leh. Qaraabadiisa iyo saaxiibadiisa way la yaabaan marka uu safrayo. Ninkani ayaa arkaya xayeysiin maqaayad dunida darafkeeda kale ku taalla, isla markiiba wuxuu bilaabayaa inuu shandadiisa xirxirto si uu ugu safro dalka ay ku taalla maqaayadaasi, isla markaana wax ugu soo cuno ama ugu yaraan cuntadeeda u soo dhadhamiyo. Marmarka qaar waxa uu u safrayay inuu soo daawado ciyaar aan xiiso badan lahayn, oo ninkan inta badan safaradiisa waa iska damaashaad. Sidoo kale marar badan wuxuu xanibayay diyaarad safri lahayd oo shirkadda lacag badan u soo xarayn lahayd. Waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha uu samayn jiray ninkani inuu hore u sii raaco isla markaana la sheekaysto shakhsiyaadka dib loogu celinayo dalkooda ama la tarxiilayo. Isla markii ay dadkaasi ka degaan diyaaradda, asiguna wuxuu ku soo laabanayay isla diyaaraddii. Sidoo kale waxaa dhici jirtay inuu ninkani xaaskiisa subaxii quraac ugu soo iibiyo dhul ka baxsan xuduudda Mareykanka sida Canada ama Mexico, barqadiina uu ku soo laabto gurigiisa. Sidoo kale waxaa jiray wiil uu dhalay odaygan, kaa oo hal maalin xitaa aan ka baaqan ciyaar uu jecel yahay meel walba oo dunidani ku taallo ha ka dhacdee. Wuxuuna wiilkani ku faani jiray inuusan u baahnayn inuu ciyaarta ka daawado shaashad, bal uu awoodo inuu tago garoonka ay ciyaartu ka dhacayso. Wax kasta uu sameeyey odaygan waxay u muuqdaan wax qariib ah, laakiin qariib ma ahan, waayo wuxuu haystaa ninkani tikid dahabi ah oo u suura gelinaya inuu safro mar alla markii uu doono. Haddaba safarada tirada badan uu sameeyey ninkani waxay khasaaro xoog leh u geysteen shirkadda diyaaradaha ee Mareykanka. Inta ay shirkadda ninkani ka iibinin tikidka dahabiga ah, waxay u malaynaysay in ay heshiiska ay la gashay ninkani, isla markaana uu kaga iibsaday shirkadda tikidkani dahabiga ah, in ay shirkadda ku heshay faa'iido badan. Ninkanina uusan geli doonin safar badan, sanadkiiba uu samayn doono 4 ilaa 10 safar oo aan ka baxsanayn gudaha dalka Mareykanka. Sidaas daraaddeed shirkadda waxay aaminsanayd in heshiiska ninkani ay ka heli doonto macaash badan, laakiin filashadaasi ma dhicin. Waxaa shirkaddii ka soo gaaray khasaaro xoog leh
oo waxay khasaartay $21 milyan. waayo odaygani wuxuu 20 sano gudaheed ku galay 10,000 oo safar, wuxuuna sidoo kale boqolaal jeer xanibay diyaarad safri lahayd oo shirkadda lacag faa'iido ah ka heli lahayd. aakhirkii waxay shirkadda go'aansatay bishii September sanadkii 2008 in ay meesha ka saarto tikidhkii dahabiga ahaa ee uu iska lahaa ninkani si ay u joojiso khasaarahan xoogga badan ee iska sii socda. sida caadada ahayd, Steve waxa uu soo aaday airportkii si uu u safro, laakiin markaani waa u suurageli waysay inuu safro, waayo waxa is-hortaag ku sameeyey shaqaalihii diyaaradda. waxayna ku dhaheen, saaxiib, tikidhkaadii waa dhacay ee dib ugu laabo gurigaada. ninkii safarka jeclaa ee shirkadda $21 milyan ka khasaariyey ayaa aqalkiisa ku laabtay asagoo murugaysan. kolkii dambane wuxuu go'aansaday inuu maxkamadda tago islamarkaana dacweeyo shirkadda. madaxdii shirkadda ayaa maxkamadda looga yeeray, waxaana loo sheegay inuu soo dacweystay ninkii lahaa tikidhkii dahabiga ahaa ee shirkadda khasaaraha xoogga la u geystay. kadib markii ay imaadeen maxkamaddii, waxaa la galay dacwadii, qolo walbana waxay la timid abuukaataheeda. dood dheer kadib, garsoorihii wuxuu go'aamiyey in shirkadda diyaaradaha Maraykanka lacag ganaax ah oo gaaraysa $3 milyan siiso Steve. sidoo kale wuxuu garsoorihii soo saaray in shirkadda u celiso Steve tikidhkiisii dahabiga ahaa. haddaba ninkii safarka jeclaa asigoo faraxsan ayuu ka soo baxay maxkamaddii, wuxuuna dib mar labaad u bilaabay safaradiisii tirada badnaa.